الحلبان سعيد ورسماء كسر دوين هذه عدك الشعب كمركه هره يا دوين waxaa tahay gudoomiyaha gudida khayraadka dabiiciga ee golaha wakiilada xildhibaan واقف sida aan la soconana khayraadkii dalka imika xaalkiisu waa waraabo waa hal واقف mas'uuliyadaas idinkeeda saareedo de gudida khayraadka dabiiciga ahaa واقف dacbiga u shaku yimid maxaad ka leedahay waa ku sababeynaysa hadda ku sheegay khayraad ama dadkii guud ahaatee xukuumaddu waxay soo dhacday iyadoo maxay ahayday boobka soo dhacday way dhalatay waxa la boobayaa khayraadkii kaliya ma aha waxa weeye wixii danta guud ahaa haday dhul ahayd haday guri ahayd haday wax kala ahayd haday danta guud ahayd boobaysaa ku darso khayraadka la boobaya wuxuu la mid yahay sharci darrada dawladani ay ku caan baxday sharciga boobaya sharcigana aan sii gelinin sharcigiina ka muluxsatay aan waxba sii gelinin ayay ka mid tahay laakiin xildhibaan idinka mas'uuliyadii idin saaran waxa weeyaan in haddii ay gudidan tihiin oo idinku wixii ka hadashaan ama is hortaagtaan shuruuc mataan maadaama idinku sharci dejintii tihiin waa mid wanaagsan anagu de sharcigaan horta dejinaa qoryaana mas'uulino askarna ma wadano annagu shaqadayadu waxa weeye inaan la weydiino waxaas maxay u dhaceen iyo yeeristii baanu kala quusanay shuruucdii xakamayn lahaydna way iska diideen waxaa u dambeysay wasiirka wasaaradda beeraha laga bedelo hadda geystay oo sharciyan 3 jeer baan u yeegnay oo dastuurka qodobka 52 ee dastuurka ayuu jabiyey 3diiba wuu la diiday oo iska dhigay nin ka sareeya sharciga 3diiba waa la diiday wax laga qabanayaa ma jiro waqti la xasiyo wasaaradda xoolaha wasaaradda waxbarashada waxaan golo u yeegnay inkastoo noo yimid wasiirka macdanta iyo tabarta ولو مثلا يعني سوى لكن بانو هذا وعن هو هذا حركي كانوا معي شلالك حركي معلنته يحركي ريفينيو معي عكسي شلالك دي الهلا إنه كانوا صدق لا حيوان كم بلني حتى لو حلي ولما صدق لي حرب وديار الصومال بينه وكانيا لكن وعنو خلق وصله هو جت من ملكت تاجنا إن الله كان يشتري لنا جالس تبيه لها شلال بيباريان أيان هم ملكت تاجنا أيان خلق وصله كانوا هو وزير مدعوين إن مدعوينها يكون طاي أنا شغالة هاي مدعوينه نتاجروا كل يوم وكاسره مثلا يعني الدستور كان تصوحوا كافي من شرعي وافقا ومدعوينها أيها ذنبها الشيء إنه كان هشيسية اللي رجع هيدا عالم جاء مدعوينها أيها تحق لقولي ما راح ينام يقولوا لما ربوا قري ورقت من لما ربوا قري ninkaas uu ka bareeray inuu sharciga saa u hor yimaado maxaa ku jaban xildhibaan in madaxweynaha sharciga deel la horteeno loo yeedho maxaa sharciga hor taagantay maxaa ku jaban waxa hor taagan golihii uu ahaa 28 xubnood ayuu ahaa xildhibaanadu 28kii in ka badan konta ayuu meel ku xidhay oo inaga ka qayb ah xarunta madaxtooyada boobka hantida qaranka ku biiray ku qasmay ugu dambeyntii imika maalinta dhawaateen marka laga yimaado arrimaha hore dhacay oo dhan halka ka shartu ka qurunsan tahay xildhibaan waxa weeyaan macdantan khayraadka dabiiciga ah ee dhulka dalka Soomaaliland hadda sheekh bay ahayd markii darrata la isku kacay maxaad ka socotaan buurta la leeyahay waxa laga iibiyay nin carab ah ee cagafyadii waxa siimaadeen reeshka kacdoon ka kiciye ka sameeyay yaa carab markii hore wadin laga iibiyay waa jirtay xeerka dhulkoodan baa maqan dhulka ma la iibsan karaa ma maxay waxa soo dhan baa maqan nimanka dhulka waxay doonayaan ku boobaan xeeraan carabkaas horu dambiyo hore noo galay wuxuu qaatay duurjoog wadanka aan Soomaaliland meesha laga jirin buu qaatay oo mamnuuca waxaan isku daynaa inaanu dabagal horta bal waxa hor wadanka qaatay waxa la leeyahay warshada hadda uga dhisan meesha gudaheeda oo walaabta intuu ku soo ka qaataa baa la leeyahay markii hore ma soo mid kale kan nimanka qarasku iibsay markii kuweytiga hore waa kii baa la leeyahay kuweytigi marka arintaas waa arintiisa dadweynuhu soo ambay maxay arinta ka yeelan wuxuu ka saaray dadkooda ilaashadaan iyo dhulkooda xildhibaan shaqaynteeda ka dhacaysa waad sheegtay wasaaradda beeraha inay safgaran weydeen waxaa jirta macdantii waxaad isagu madaxweynuhu nagu riixay environment iyo deegaanka ka waran iyaga sida wada shaqaysan wasaaradda iyaga horta dee runtii meesha xagga sanada ka wada bugtaa laakiin markaan wasaaradaha wixii awoodeeda wasiirka wasaaradda environmentiga ilaa soo far saddex xeer baan wada ansixinay oo wada wadnaa fulintooda waa wax kale fulintooda waa wax kale xeerarka dugsiga waa jira ama dhaqaalaha ha noqoto oo guddiga hadda qarashka ku shaqayso male waxaana u diiday dawladda ayaa miisaaniyada noo tagta markaanu xeerka samayno xeerka basadka
ayaan islaamay haddii alla ka dhigo dee ayuunbaa wixii midii madax banaananayaan xildhibaanada way isnoolgareeyeen runta ku sheegayaaye shaqadood bay isnoolgareeyeen xildhibaan aan kaa dhex galo waxaad leedahay miisaaniyad marihin haddaanu nahay guddida iyo guddiyada kale ee golaha wakiilada idinkaana ansixiyo miisaaniyad kasta oo sanadkiia siday markaa u suura tahay in laydinka saaro idinka budgetkii aad ku qaban lahaydeen hawlaha dee arrimaha bulshada ugu adeegi lahaydeen waa dee musuqmaasuqa faraha badan baaxsan ee xukuumadda ka dhex jirana way aragtay isla markaana haddii golahu ha u galo waxay noqonaysaa in dee musuqmaasuqaasi dee laisku tooso sidaa awgeed waxay curyaamin ka saartay golaha wuxuu ku shaqeyn lahaa o dhan ugu dambayntii fariinta adigu aad diraysaa maxay tahay waxaan dirayaa xukuumaddu inay sharciga usoo hoggaansato inay ku soo noqoto xaydaankii sharci inaanay isqaawin inay iska dayso boobka wax yarba waxa la yidhi dheg dabalba ka hada inay inta hadhay bal iska dayso boobkan hantida qaranka iyo khayraadkan dabiiciga ay boobayso dekadka u dambayso waa annaga isku hortaagan meel walba wuxuu samaystay jidgooyo nin buu bir u dhigay dekadibu nin bir u dhigay waxaa shalay waafaqsanayn buu yidhi ka qaado lacagtii oo laleeyahay weliba waa ninka ku dhowdhow madaxtooyada bir u dhigay meel kale waa kan meel walba nin buu cashuur u saaray sharci iyo mid waxba waafaqsanayn aad iyo aad baad mahadsan tahay xildhibaan Siciid Warsame halkan waa raadiyo codka shacabka